xaflad si ballaaran loo soo agaasimay oo hadda ku soo dhamaatay hotelka Haldoor ayaa guud ahaanba waxay mas'uuliyiin tiro badan oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka wadani ay ooda ku jabiyeen guud ahaan ay iskaga casileen xilalkii kala duwanaa ee ka hayeen xisbiga mucaaradka wadani tan iyo intii khilaafka xoogan ee xisbiga mucaaradka wadani uu soo kala dhaxgalay maamulkiisa kala duwan ayaa waxa soo baxaysa kadareerida ay ka dareerayaan xubno taageerayaal fara badan oo xisbigaasi ka taageeri jiray gobolka Awdal oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku andacoonayay guud ahaanba inay halkaasi cadaaladii 5 sano ay soo hayeen ay ku naaleen xisbiga mucaaradka wadani inuu cadaalad horseedi doono ay meesha ka baxday juliin heer gobol heer qaran iyo heer degmaba oo caawa xafladani ka hadlay guud ahaanba sheegay in cadaaladii awgeed ku xidhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro iyaguna sababtaasi awgeed ay u baneeyeen guud ahaanba xilalkii kala duwanaa ee ka hayeen heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba xisbiga mucaaradka wadani tanina ay tahay xisbiga mucaaradka wadani dildilaac xoogan oo kala kulmay tan iyo intii doorashadii golaha dhexe la qabtay magaalada Boorama oo muddooyinkii ugu dambeeyay taageerayaal tiro badan ay ku soo bandhigayeen siyaabaha kala duwan uga soo horjeedaan madalaha ay ku kulmaan bulshadu iyo madalaha hotelada iyo xafladaha aad u ballaaran oo xisbigaasi taageeradiisa hogaanka iyo garabka xisbiga mucaaradka Axmed Muumin taageersan ay guud ahaanba ku wiiqayaan taageerada guud ee xisbiga mucaaradka wadani oo ku leeyahay gobolka Awdal mas'uuliyiintii caawa xilalka baneeyay oo iskugu jiray rag iyo dumarba ayaa waxa kamid ah hadaladoodii cadaalad darradu ummadaha way burburisaa waxba ma dhista cadaalad darradu markii aynu aragnay wax loogu yeeray golo dhexe weligeed maynaan arkin xisbiga مثلا حزبنا Somaliland 250 ilaa 300 ayaa la yiraahdaa waa golo dhexe miyaynu aragnay weligeen wax lagu sheega 900 oo qof inta meel la isku keeno bas saroorti lagu soo guro oo la yiraahdo waa golo dhexe waxaas ma golo dhexe ah sida daraadii waxyaabaha iyo waxyaabo badan oo aan halka ku soo aragnay kadib waxaan go'aansaday aniga oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal ahna xubin golaha dhexe ah inaan iska casilo gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal ee aan shirkii sanadood ee dambe markaan hadaba aragnay inuu maxay ahayd gudoomiyahaas wax cadaalad haba yarato xukuumadda dadaalkii ku soo baxaysa waxaan jeclaa in kala taxno xubinimada ee anigu waxaan ahaa xisbiga maxaa gudoomiyaha heer qaran ee gobolada galbeedka waxaan ahaa maxaa golaha dhexe waxaan ahaa golaha fulinta waxaan ahaa gudoomiyaha gobolka ee garabka haweenka wadani waxa soo gaarsiinay bulsho oo maanta ku naalownayo laakiin dadku laga dambeeyaa weli maaha intuu soo socon waaya ummadiisa wada waaya ee cadaalada ka beera cadaalada darro ilaahay ma jecla mana guuleysan maayo oona talo iyo midna una la yeelan xisbiga intii la joogtay oo talada iyo wax walba ay ka goysay gowstarbeedka reerkooga waxaan gartay aniga oo ah maxamed cige in aan iska casilo xubintii xisbiga xubintii golaha dhexe xubintii gudoomiyaha dhalinyarta garabka wadani sidaa darteed waxaan kan message uga diraynaa Cabdiraxmaan Cirro waxaan ku leenahay uma qalantid hoggaanka wadanka salaamka bacid marka waxa weeye waxaan leeyahay anigu waxaan gudoomiyaha garabka ku xigeenka garabka haweenka cadaalad darrada ka dhacday meesha markaan aragnay markaan wax walba aragnay inaan iska casidayno anaga intaan xubinimo ku joognay oo dhan maxaa golaha dhexana ahay oo iska casiday xisbiga wax lagu hareeyay ma jiro maanta laga bilaabo anagu waan ka hadlay waxaan leeyahay wax la aamini kara maaha idinkuna aaminina أنا وحنا قدوميها دقمة قبل كأوضل
waxaana xubin ka tirsan golaha dhexe ee gobolka maadaama aanu aragnay xisbiga wadani maadaama aanu aragnay dhibaatada ka timid halkii aynu wada ogeyn iyo sidii falkii u dhacay muxuu ahaayey iyadoon xitaa intuu inoo yimid odaygii aan oranin waraabaha kaciya iyo ka aamusan labada waxa la raacaba leerka odayga xumee isagoo qoslaya dhinacna kaa qaniinaya waligiin aalin wax allaala wuxuu inoogu qoslay goostambeedkaasi inoogu hayaa cadowtinimada kan uu soo doortayna wax allaala wuxuu hayaa ma jirto haddaan nahay samaroo mid baynu nahay mid un baynu nahay kuwuu doortay iyo kuwuu ka tagayba waynu siman nahay goostambeedkaasi inooga wada qaniinaya oday xun weeyaan waxaan mar weydiin sheegayaa dee waxaa digniin inoogu filan axmed muumin seed halka la mariyo annaguna waxaan ku sii sugno oon uga fadhinaa ma jirto wuxuu noqday mid aan la aamini karin mid aan dal laga aamini karin mid aan cadaalad lagu aamini karin cadaalad darro ayuu maxaan ku idhahday ku abtirsaday sidaa darteed waxaan iska casilay waxaan ka tirsanahay golaha dhexe dadkii codka bixinayay codka la sugayay baan nahay annagu looga hoos qaaday inqilaab baa dhacay ma ahayn codba dhicin cid lagama bedin sidaa darteed xubintii golaha dhexe waan iska casilay laga bilaabo maanta iyo xubinnimadii xisbiga aan ka ahaa waxaa kaloo idiin sheegayaa talada waynu wada leenahay taageerayaasheedii baa tihiin kuwii shalay codkana siiyey baa tihiin waan ka tashanaynaa wixii dambe ee mustaqbalkeenna ana si guud iyaan uga tashanaynaa waanan idinka martigelinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo isku soo wada duub oo xilalkan ay baneeyeen mas-uuliyiintu ayaa waxay ku noqon doonaa xisbiga mucaaradka ee wadani wejigabaxka ay kala kulmaan gobolka awdal taasina ay noqoto dabayl xaga oo ka timiday dhinaca bariga kuna dambeysay daadxoorta haatan xisbiga mucaaradka ee wadani dildilaaca xaawan ee kaga yimid gobolka waa hori axmed hori shabakada caalamiga ee Boorama News magaalada Boorama.